waxaan rabaa saaka inaan u mahadceliyo safiirka dawladda Talyaaniga u fadhiya Soomaaliya Ambassador Excellence Vecchi Alberto Vecchi iyo maamulka iyo dhakhaatiirta isbitaal Banaadir saakay waxaan saxiixanay heshiis dawladda Talyaaniga ay ku kaalmeynayso isbitaalada Soomaaliya qaarkood waxaa la qabtay shaqo runtii oo aad iyo aad u badan sanadihii dambe labadii sano ugu dambeysay waxaan ku faraxsanahay maanta heshiiskan markuu dhamaaday inaan soo tusinay safiirka iyo wafdigiisa kala la socda lacagahoodii meelaha ay gashay oo uga ah Soomaaliya meelaha yani aan ka dhiboonahay oo kaalmada ka rabno isbitaal Banaadir waa isbitaalka hooyada iyo dhallaanka qaybtan ilmaha intensive care ilmaha hadda dhasha waxaa lagu dhisay lacagihii ay dawladda Talyaaniga ugu deeqday isbitaalada waxaa lagu qalabeeyay oo arkaysaan masawirada qaarkii nala fiirsateen incubatoryaasha yaalo qalabka yaalo lacagihii dawladda Talyaaniga lagu gaday waxaa baahidooda la daboolay dad badan oo Soomaali ah oo aanan aadi karin isbitaalada gaarka loo leeyahay kharash daraadiis meesha aan fiirinay hadda ilaa iyo waxa intensive care ka caruurta hadda dhashay ilmaha hadda dhashay waxa saaka jiifta 19 cunug oo lagu daaweynayo oo qaarkood runtii ilaahay baa nafta ma aragtay dadka yani gooyo ama ku haaya maanta ilaahay ka sokow gacanta dhakhaatiirta oo ay runtii qaar intooda badan tababartay Dr. Ubax iyo dhakhaatiirtii kale ka shaqeynaysa ribaartada ay isugu tageen iyagoo isticmaalaya qalabkan loo keenay baahi weynay dabooshay hase yeeshee weli ma la dhowa marka waxaan rabaa inaan ugu mahadceliyo si khaas ah safiirka Alberto Vecchi iyo dawladda Talyaaniga guud ahaan kaalmadeeda waa u mahadcelinaya waxaan ku boorinayaa isbitaalka shaqaalihiisa iyo madaxdiisa in wixii loo keenay runtii gacanta ku hayaan oo ay si xanaaneeyaan ayagana waxaan ka sugaynaa insha Allah tacaala inay nagala sii shaqeeyaan meelo badan oo Soomaaliya kamid ah sidii loo gaarsiin lahaa